fiidnimo wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA. Allah u naxariistay waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Shariif Saalax Maxamed Cali oo ahaa siyaasi ruuxadaay oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii kala dambeeyay ee dalka Soomaaliya soo maray. Waxa uu door weyn ku lahaa hawlihii qorista afka Soomaaliga. marxuumku wuxuu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo ay maamusho dawladda Turkiga kadib markii uu madaxa dhiig kaga furmay sida la sheegay. haddaba taariikhda marxuumkaasi Shariif Saalax Maxamed Cali waxa Caashi Ibraahim Aadan ka wareysatay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalle oo ay qaraabo ahaayeen marxuumka muddo dheerna ay is yaqaaneen. awlan waxa weeyaan Shariif Saalax Maxamed Cali xiriir qaraabanimo waa naga dhaxeeya saaxiibtinimada waa naga dhaxeeya inkastoo deegaan ahayn anoo u faa'iideysanaya fursadan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ama af Soomaaliya ku hadasho danaynaysa dhaqanka Soomaaliyeed waan u taageeraya gaar ahaan eeladaysi asxaabtiisi Shariif Saalax aniga toddobaatankii ayaan isbaranay siga reefado buu ahaa baydadan ku dhashay marka waan isu dhaweynay muddada wixii ka dambeeyay xiriir joogto ah ayaan lahay Shariif Saalax ina khayrta Maxamed Yuusuf wuxuu ku dhashay degmada Fador 1976 wuxuuna ka galay meeshaas iskuulkii ugu horeeyay oo hal qol ka koobnaa Fador laga dhisay 1946 kadibna markuu dhameystay iskoolkii Deberiga la dhigin jiray iskool hoose iyo waxa soo kala tahaa wuxuu noqday macallin maamula uu noqday wuxuu ku soo qaatay shahaado macallinnimo Itaaliya kadib haddana wuxuu u aaday 1962 ayuu wuxuu ku soo baxay jaamacadda Bachelor oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ah waxaa loo bedelay safaaradii Soomaalida ee Qaahira 1963 meelahaas ilaa 65 bilowgeedii ayuu meesha soo joogay diblomaasi buu ahaa markuu meesha ka yimid agaasimo ayuu ka noqday wasaaradahan Soomaaliya ganacsiga markii kacaanku u dhalanayna agaasimaha maamulka wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha ayuu ahaa markii kacaanku uu dhashay dibadii waxaa loo magacaabay gudoomiyihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo markaa la asaasay markii horena ahaan jirtay macahad intaas marka waa taariikhdiisii waxbarasho ugu horeysay aan ka sii wadna dhinaca markii kacaanka uu dhashay kacaanka waxyaabaha sida weyn loogu xusuusto waxaa kamid ah qoristii afka Soomaaliga Shariif Saalax Maxamed Cali Allah u naxariistay isagaana gudoomiye u ahaa guddigii qoray afka Soomaaliga bal halkaas dad ka sii wado maxaa xilligaasi loogu doortay isaga inuu noqdo gudoomiye u noqdo guddigii qoray afka Soomaaliga maanta la qoro horta wuxuu ahaa gudoomiyihii jaamacadda ayuu ahaa jaamacadda ummadda talabaad nin lahjadooyin kala duwan garan ayuu ahaa oo maxaa waa u yaqaanay Carabigu si fiican u yaqaanay yaraantiisii buu soo bartay Talyaaniga ayuu yaqaanay Ingiriiska u yaqaanay jaamacaddana gudoomiye ku ahaa marka taas baan u malaynayaa sababta loogu doortay inuu gudoomiyaha sida uu noqdo sababta afkiin wuxuu noqday wasiirka hidaayada tacliinta sare ilaa 76 uu ahaa kadib 76 wixii ka dambeeyay wuxuu noqday xisbigii la asaasay buu ka mid noqday golaha dhexe 78 ayaa safiir laga dhigay ilaa 81 wuxuu soo joogay Itaaliya 81 ilaa 84 safiir haddana wuxuu ka noqday China 85 ilaa 89 London buu joogay safiirka ahaa 89 markuu soo noqday ilaa burburkii wuxuu ahaa gudoomiyaha hoggaanka arrimaha dibadda xisbigii dalka ka taganayay buu ahaa Shariif Maxamed Cabdalle aan soo noqono marka shakhsiyadiisii maadaama ilaa intaas aad la socotay taariikhdiisii shakhsiyadiisa maxaa ku cabiri kartaa Allah u naxariistay Shariif Saalax Maxamed Cali والله Shariif Saalax nin aqoonyahan darajada koowaad ayuu ahaa nin aad u urursan buu ahaa nin suugaanta iyo aad u daneeyo ahaa qoraal buu ahaa dhowr kutub buu qoray nin aad iyo aad maxaan ku raahdaa hobbigiisu uu yahay dhaqanka iyo inuu maxaan ku raahdaa kobciyo Soomaaliga aad ugu dadaali jiray siyaasi aad ula socda arrimaha caalamka ahaa wuxuu ii sheegay mar in laga soo bilaabo 62 ilaa waqti dhow bay ahayd markii uu imtixaanka ka yimid maalin kasta wuxuu la soo gudboonay inuu qori jiray wixii soo maray maalintaas marka shakhsiyad wadani ah oo midnimada dalka aad u aaminsan waxaad iga warantaa noloshiisa gaarka ah maxaa kala socotay noloshiisii wuxuu ahaa ganacsi kuma jirin waa ninkaas oo iska ahaa weligiis shaqaale dawladeed iyo siyaasi noocaas oo kasta ahaa xaas uu lahaa
iyo ilmo badan oo uu soo koriyey oo adeer iyo abti u yahay ayaa jooga. waa marka soomaalida oo dhan baaba caruurihiisii ahayd oo anigaan kula hadlahay aan ka mid ahay. caruur dhalay ma jirin, laakiin dad badan oo uu soo koriyey oo dunida daafaheedii kuwa kala firirsan oo soomaali nooc walba leh ayaa jirta oo gacan soo siiyey. waxaad ka warantaa hadda wuu dhintay Shariif Saalax Maxamed cali Allah u naxariiste. bal maxaa nooga sheegi kartaa halka uu ku dhintay iyo bal inkastoo waqtigiina uu galay haddana waxa ay sababtu noqotay? dhowr bilood ka hor ayaa wadnaha laga qabtay Turkiya ayaa dhakhtar loogu qaaday, wadnaha laga soo qalay, operation weyn wadnaha ayuu soo galay, waa uu soo roonaaday. markan dambe maskaxda ayaa dhiig ugu furmay oo isagoo caadi ah baa lagu soo booday. marka si allana way hormeelayeen, wuxuu 10 maalmood uu ku jiray isbitaal halkan ku yaalo ayaa lagu baxnaaninayay. saaka 9 baarigii meelahaas ayuu dhintay, Allah u naxariisto. waxaana lagu aasay meel la yiraahdo calamada la yiraahdo Afgooy iyo Xamar u dhaxaysa ayaa lagu aasay. kaas wuxuu ahaa Shariif Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan. waxaanu ka warbixinayay taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Shariif Saalax Maxamed Cali oo ku dhintay magaalada Muqdisho isla markaana maanta lagu aasay.